wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Caddi ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula yeeshay waftigii ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee maalmahanba ku sugnaa magaalada Hargeysa. Kulankan oo ahaa mid ay albaabadu u xirnaayeen ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa wasiirku warfidiyeenada uga warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen waftiga. Waxaana wasiirku sheegay inay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay yihiin dal jaar ah oo leh xuduud dheer kana wada hadlayeen siyaabihii la iskaga kaashan lahaa dhinacyada amniga iyo isku socodka labada dal. marka dowlad deegaanka uu fuuda ka yimid iyo wasiirada ka yimid waxaan ka wada hadalay waxyaabo badan iyo sidii la isku kaashan lahaa dhinaca xuduudda sidii la isaga kaashan lahaa way xuduud dheer bay naga dhaxaysa dowlad deegaanka Itoobiya oo iyagu Itoobiya uga wakiil yihiin marka sidii nabadgelyadiisa iyo isu socodka dadka iyo muxuu ahaayay dhaqaalaha intaba looga wada hadli lahaa ama la isaga kaashan lahaa baan ka wada hadalay.